agaasimaha isbitaalka TB ee magaalada Boorame ee Aananiin Hospital Dr. Maxamed Faarax Maxamuud ayaa ka warbixiyay howlaha shaqo ee isbitaalkaasi ka socda waxaana uu sheegay 380 bukaan ay dawada ka qaataan waxaana uu inta raaciyay 180 inay waar ka jiifaan wax lagu daweyn jiray barigii hore ilaa 1000 qof oo bukaan ayaa lagu daweyn jiray imikana ilaa 500 600 oo qof oo bukaan ayaa lagu daweeyaa sanad walba tirada bukaanka imika halkan ku daweynay xanuunka TB da dawadiisa ka qaadataa waa ilaa 350 qaar markaa waxay ku soo doontaan bukaan socod oo dibadda ay ka yimaadaan qaar oo bukaan chief ilaa waxa chief 120 qof oo bukaana inta kale markaa dibadda ay ka soo doontaan sababta kuwa chief badanaa waxa weeyaan dadka xaakadoodu ay positive ka tahay ee TB da laga helo ayaa isleeyahay dadka kale oo ku faafinaya si bulshada iyo dadkooda iyo heladoodii aanay ku faafin marka labada bilood ugu horeeya waan chiefna isbitaalka ay chiefan kabacdi marka ay ku soo doontaan bukaan socod ahaan waxa kulay waxa weeyaan waxa keeni kara qofka difaaca jirkiisa oo hoos u dhaca keeni kara waxa keeni kara isaga oo marka la nool qof kale oo xanuunkan qaba muddo waxa kale oo keeni kara marka meelaha hadii jeer dadku ay ku badan yihiin overcrowding ka iyo waxyaabahaas waxa ugu badan ee qofka u nugleeya xanuunkan inuu qaado waxa weeyaan difaaca jirkiisa hoos u dhaca waqti hore la identify gareeyo xanuunka TB da qaba kabacdina la daweeyo taas inta waxay sahlaysaa in transmission iyo gudbinta dadka kale u gudbin lahaa ay yaraato kala baxdaa laba qaybood oo kala ah mid sanbada ay ku dhacdaa pulmonary TB ba la yiraahdaa midna sanbada jirka intiisa ka baxsan bay ku dhacdaa oo extra pulmonary TB ba la yiraahdaa oo ama qanjidhada ku dhacdo ama lafaha ku dhacdo ama joints ka kala bulshada ha ku dhacdo ama xitaa maqaarka laftiisa ha ku dhacdo meel kastoo jirka kamid ah way ku dhici kartaa midna waxay ku dhacdaa oo markaas sababka agaasimuhu waxa uu intaasi ku daray in wax kasta oo daryeelka iyo caafimaadka bukaanka lagaga qabanayo kaalin weyn ka geystaan isbitaalka TB da ee Aananiin waxa la aasaasay 1969 waxaana lagu daweeyay dad aad u tiro badan oo haatan ka fayo xanuunkaas